And I told her, that's not how this is supposed to work. Right. They're supposed to come over and then go home when they spend the night. And I told her that's not how things supposed to work. waxaan u sheegay in arrintu sidaas aysan u shaqaynin ama sidaas aan laga rabin. They're supposed to come over and then go home. waxaa laga rabay inay imaadaan kadibna ay baxaan yani gurigooda aastaan. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima. Videoga maanta bilaabin kahor waxaa rabay inaan idinkaga mahadceliyo qaabka wanaagsan aad ula falgasheen videogan kii ka horeeyay. waxaan rajeynayaa supportiga uu sii socon doono biidhnillah. goolkeena waxaa waa inaan 10k gaarno adinkaan gaarsiin karo. haddaba si aan u gaarno goolkeena waxaa ka codsanayaa videoga la gareysid, channelka subscribe aad dhahdid, asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Englishkana aad u share gareysid. Let's go. Dog, I am old. Yeah. Yeah, that's old is the goal, though. Yeah. Yes. And this has made me 82% smarter. Has it? Yeah. How's that? That was big. Dog, I am old. Dog waa slang waryaa camal waaye. I am old. duqaan ahay. Yeah, old is the gold. Tana waa oraah caan oo leh old is gold. yani wixii hore dahab waaye. And this has made me 82% smarter. tana waxay iga dhigaysaa 82% inaad dadka ka caqli badanahay. Smart, caqli badan. Smarter, ka caqli badan. How's that? Well, you know, I know more now because of this beard. I know more. How is that? Sidee? How is that? Sidee? yani waxay weydiinaysaa sidee dadku u caqli badan tahay. Well, you know, I know more now because of this beard. wuxuu leeyahay garkan dartiisa hadda wax badan aan ogahay. Is that right? Yeah, my grandkids, they test me all the time. Stuff. I don't, you know, I'm not as happy as most grandparents are. Is that right? That's صح miya? Yeah. My grandkids, they test me all the time. Grandkids waxaa waaye ilmaha dhashay ilmahay dhaleen. They test me all the time. mar walbo way i imtixaana, way i broobestaan. I'm not as happy as grandparents are. xulee uma faraxsani sida grandparents kale u faraxsan yihiin. Grandparent af Soomaali wax lagu dhahaa ma aqaani, laakiin waa ayeeyo iyo awoowe oo la isku daray. waxaa loo yaqaanaa grandparents. What? I don't really get it. Because so I thought you did like having grandkids because you just have them for a short time and then they go away. I don't really get it. ma fahmin. I thought you did like having grandkids. waxaa u maleynayaa inaad ka heshay inaad leedahay ilma aad awow u tahay. Because you just have them for a short time. maxaa yeelay keliya waxay kula joogi doonaan waqti gaaban. And then they go away kadibna way bixi doonaan. Go away bixid ama ka tegid. Yeah, but see, my wife is really into this grandparent thing, so she lets them stay over at the house. My wife is into this grandparent thing. Into markaan waxaa waaye ka helid. Into ka helid. ani wuxuu leeyahay xaaskayga waxay ka heshaa ayeynimada. So she let them stay over at the house. sidaa darteedna waxay u ogolaataa inay guriga iska joogaan. Stay over, joogid. ma waxaa dhihi karaa inaad habeen meel ku hoyatid. And I told her, that's not how this is supposed to work. Right. They're supposed to come over and then go home when they spend the night. And I told her that's not how things supposed to work. waxaan u sheegay in arrintu sidaas aysan u shaqaynin ama sidaas aan laga rabin. They're supposed to come over and then go home. waxaa laga rabay inay imaadaan kadibna ay baxaan yani gurigooda aastaan. I don't, and that's the newest one. That's number 5. That's little Ezra. He's number 5. And that's the newest one. That's number 5. kana waa kii ugu dambeeyay waa numberka 5aad. waxaa la tusaya cunuga awah u yahay. That's a little Ezra. He's number 5. kaasi waa Isra yare waana number 5. He broke the tie, so now it's 3 boys and 2 girls. Oh. He broke the tie. Tie waxaa waaye isbarbardhac. xulee asiga wuxuu jabiyey isbarbardhicii ayuu jabiyey. So now it's 3 boys and 2 girls. hadda waxay noqdeen uu leeyahay 3 wiil iyo 2 gabdhood. yani ebel waxay ahaayeen 2 wiil iyo 2 gabdhood. bareejay ahaayeen. wiilkana imaade bareejadii jabiyey. wiilashuu saddexeeyey. That is adorable. How old is he? That's adorable. Cute عمله وتاجتها adorable. وواح في عن يعني و cute leedahay. How old is he? meequu jiraa? I have no idea. Yeah. I haven't played with him yet. No. I have no idea. waxba kama ogi. I haven't played with him yet. weli lamaan ciyaarin. Yet weli. No, I don't like them when they don't have head control. I don't like playing with kids with no head control. Yeah. No. Hold your head up. Hold your damn head up. Yeah. Yeah. No, I don't like them when they don't have a head control. ma jecli uu leeyahay inaan la ciyaaro ilmaha aan madaxooda cishan karin. Hold your head. Hold your damn head up. madaxaaga cisho, madaxa kor u cisho leeyahay.
hold celin waaye hold up kor u celin. You have to support their head, yeah. Yeah, I don't like that. You got to No. put them 2 fingers Yeah. back there. No. And then it slide off. Yeah, You feel responsible for them. yeah. You have to support their head. Support waa taageerid laakiin markaan taageerid oo waxaa waa inaad qabatid inaad madaxooda aad yani u taageertid oo qabatid. You got to put 2 fingers back there. Gadaala waa inaad 2 far ka gelisaa soo celisaa camal uu leeyahay. And then they slide off. Slide off waxaa waaye wax markay kaa simbiraxdaan kadibna way kaa simbiraxanayaan uu leeyahay and you feel responsible for them. Kadibna waxaad dareemaysaa mas-uuliyad. I understand. So you wait for the head control to play with them. Yeah, then and only then. And I need a couple of words too. You know, Yeah. I don't like that stage where they don't do nothing. Yeah. They just little blobs and I don't care for that. So I wait on to where they can say, Papa. At Yeah. least say that and then I'll play with them. Yeah. Other than that, I disown them. videoga aad u dheeryahay meeshaas iskaga soo simeynaa waad ku mahadsan tahay daawashada fadlan ha hilmaamina videoga la garisid pageka aad subscribe dhahdid that's it see you in my next video bye